بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalyaal isku soo noqod wacan sida aragtaa muuqaalka maanta wuu dheeryahay laakiin wax aada ahmiyad u leh ayaan ka hadli rabaa insha allah hadduu ilaahay idmo. waxaan ka hadli rabaa riyooyin badan aan aniga soo diyaariyey. riyooyinkana waxaa arkay inta badan qof murugeysan, qof welwel haysto, qof kurbo meel ka haysato, mise qof xanuunsan, mise qof arrimo ay ku cuslaadeen. arintaana sababtaan ku keenay waxay tahay gabar aan beri daris ahaan jirnay oo muddo sida la joogaa ila soo xiriirta ayaa waxay u sheegtay in wiil iyada dhasho 20 jir ah ka xiran xabsi laga geli kaga jiro si dulmi ah. kabacdi maxay gabadha mar walba duceysto waxay tiri riyooyin ay aragtaa, riyooyinka faraj ay tilmaamayaan. marka sidaa darteed ayaan go'aansaday inaan muuqaalkan aan sameeyo oo ka hadlayo riyooyinka marka aad kurbeysan tahay aad ilaahay barisid mise aad sadaqa aad la baxdid. caadi ahaan qofka xanuunsiya kale waxaa wanaagsan inuu sadaqa la baxo. sadaqada had iyo jeer way fiican tahay haddii hataa kurbe ay ku hayso hadduu xanuun ku hayo, haddii imtixaan arrin kuugu socoto kale, imtixaan waxbarashaada, imtixaan nololeed ha ahaado, sadaqada way fiican tahay hadday gacantaada wax ku jiraan. hadday gacantaada wax ku jirin xoogaaga sadaqayso, hadalkaaga sadaqayso, wax badanaa sadaqa noqon kara. calaa kulli xaal hadalkaa idinku dheereynine marka waxaan soo diyaariyey riyooyin oo haddaad aragtid faraj ay tilmaamayaan. dabcan muuqaalo hore aan kasoo hadli way jiraan riyooyin faraj tilmaamayo, laakiin midkan wuu ka duwan yahay. midkan wuxuu ka hadlaya qofka xanuunsanaa, qofkii awlaad raadis ahaa, qofka guurdoon ahaa, qofka sidaan oo kale qof xabsi kaga jiro, arrimo badan farajkooda ay tilmaamaysaa. riyooyinkaas ayaan galaya. waxaan idinka codsanaa inaad muuqaalkan dhammaysataan. samacad iska gashta muuqaalkan dhammaysta, waayo waan huba muuqaalkan kuma khasaareysaan. arrinta koowaad aan kaga hadlayo waa midda labaad waxaa waaye haddaad aragteen muuqaaladeedii oo halkan kanaalkan muuqaalo hore ayaa qof cisho dhaweed wuxuu igu soo qoray ma riyooda. haddaan riyoodana riyooyin cabsi qarow iyo riyo aanba ilaabaya ayaan ku riyoodaa. marka maalmo ka horaan arkay qaybta YouTube studioan ka arkay, haddana insha Allah waa soo baarayaa. haddaan qoraalka soo hela halkaana idin soo saaraya. maxay ahayd taasna inaan ka hadlaa rabaa muuqaalka dhammaadkiisa. marka hore riyooyinka farajka tilmaamay ayaa noo bilaaba insha Allah. lambarka koowaad, qofka ku riyooda asigoo webi biyo ka cabayo, webiga caadiga socdo. qofka hadduu ku riyooda asigoo biyo ka cabayo, taa waxay tilmaamaysaa raaxatu baal, deganaasho. caadi ahaan weliba khaasatan qofkaa kurbeysan bacda kurbo dheer inaad rabbi ku siinayo deganaasho, xasilooni iyo arsaaqada marka maxay tahay wax badan waa kasoo hadalnay soomaha. wax walbo ilaahay ku siiya arsaaqada. hadduu qofka xanuunsanaa caafimaada noqonaya. qofka haddii kurbo kala heysay, haddii xoolo yar heysay, almuhiim waxaa la waxyahay. laakiin waxaa muhiim ah qofka biyaha u cabay inay ahaayeen biyo nadiif ah. caadi ahaan webiga biyihiisa sida biyaha badoo kale maaha, dhanaan ma aha, yani waa biyo xareed oo roobka ka yimaado macaan. biyaha marka hadday macaanaayeen oo nadiifna ahaayeen waxay tilmaamaysaa wax badan oo wanaagsan oo rabbi kuu soo wada. hadday biyo badan aad cabtay waad ka dherigtay, yani qof oomanaad ahayd, cimri dherer ayay tilmaamaysaa. wallaahu yaclam. haddaanu soo noqono aragtida webigoo keliya, taa waxay tilmaamaysaa nolol wanaagsan iyo baraka xoolahaaga, inuu rabbi kuu barakeynayo. hadday biyahaas aan nadiif ahayn mise urtooda aan wanaagsaneyn mise dhanaan ahaayeen, hore waa ugu soo hadlayaa webiga, taana kuleyba ma wanaagsana. laakiin muhiimad waxaa waa inay biyaha nadiif ahaayeen, biyaha aan ahayn biyo lagu qarqoomayo. matalan adoo ku dabaalanaya hataa aaday u fiican tahay, waxaa weeye horumar. haddii laakiin biyaha ay xumaayeen oo kale ma wanaagsana. waxaa kaloo idin raacanaya haddaad ku riyootid adigoo ku qabaysanay biyaha webiga, waxay tilmaamaysaa toobadkeen iyo waxay tilmaamaysaa u noqosho rabbigaaga iyo ka gudbid marxalad adkeed. sababta ah ayaa marka dembigeena bata ilaahay wuxuu sameeyaa, rabbigeena yani wuxuu sameeyaa iqaab ayaa la kulanaa.
iqaab yar ayaan la kulanaa. Sidaa darteed markii laga yaabo murugadan ay ku haysatay, dhibaatadan ku haysatayba inay ahayd dunuub iyo macaasi aan anaga sameyn oo kale. Sidaa darteed markaa ku riyootid adigoo wabiga ku qabeysanayo, waxaa macquula inaad toobad keeni doontid, mise aadba toobad keento rabbi kulliya waan kaa aqbalay. Wallaahu yaclam. halkaasaan kusoo koobay riyada webiga. Webiga riyadiisa aad u wanaagsan tahay qofka riyo ku arka, sababtoo biyihiisa ya macaan. haddaa ku riyootid adigoo ka talaabay webiga dhinaca kale u gudbay, ka gudbid marxalad adag waay, aad u gudbaysid marxalad ka wanaagsan. yacni caadi ahaan qofka dhibaatooyin oo murugo la noolaa, haddaa si deganaashay xasilooneed ugu gudubtay aan biyaha ku qaadinba, hadday biyaha ku hafiyaan ku qaadaano yacni aad qarqoontidoo kale taa way ka duwan tahay. maadaama aniga riyooyinka farajka tilmaamay aan ka hadleyno, kuwaa kale hadda kama hadleyno. laakiin haddaa lacala riyo ku aragtid aan ka wadaa adigoo webiga biyihiisa gudub ayaad islaheed, biyaha ku qaaday, mise waad ku qarqoontay, mise waad ku waxyeelootay, hataa waad ku dhimataba. subxaanallah. riyadaasoo kale rabbigaa ka magangal. markaasoo kale riixun aad aragtaan walaalayaal, mar walba waxaa idin kula talinaya sadaqo iyo istikfaar iyo tooba la imaado. wanaagana aad ay u fiican yahay qofka inuu wanaagsanaada. arrin badan ayay ka caawinaysaa, hataa hadduu dikri sameyna, hataa hadduu quraan aqrinin, keliya inuu wanaagsanaado ummadda uu ammaangeliyo oo ummadda yacni ka nabad helaan oo wanaajiyo. aad ay u wanaagsan tahay midaana. ilaahay arrimo badan ayuu kaaga furfuray inaad wanaagsan tahay. lambarka 2, haddaa ku riyootid cadceedoo soo baxayso. soo bixitaanka cadceed aad ay u wanaagsan tahay riyadaada. yacni qof kasta ma arko. haddii aad ku riyootid cadceedoo quruxsan, qoraxdoo intay soo baxday quruxsanoo nadiifsan, haddaa riyo ku aragtid, yacni mar walba markay ka iftiin badan tahay, ka quruxsan tahay, ayaa kaaga kheyr badan tahay. rabbi kuugu bishaareynaa kheyr badan iyo murugi iyo dhibaatooyin kaasoo afjarmaayo. lambarka 3, haddii aad ku riyootid adigoo cadeysanayo ilkahaaga nadiifinayo, aad ku riyootid riyada dhexdeeda, afkaaga waad nadiifisay, waa cadeysatay, taana aad ay wanaagsan tahay. xaalad nafsiyad aad la nooleed, kurbo iyo ciriiri iyo diiqad adiga ku heysay, rabbi farajkaaga furaa. walaalee riyooyinkan marka qofka arkaya waxaa kasii fiican qofka caadi ahaan asiga duceystay, rabbi subxaana watacaala wax weydiisatay, mise quraanaad akhrisatay, mise dikriya samaysay, mise sadaqooyinaad samaysatay. markaa riyadan aad aragtid kasoo noqosho malahan, waa riyo aad wanaagsan. hataa haddaad waxaa sameynin, laga yaabo inuu qalbigaaga wanaagsan yahay, nadiif yahay, oo rabbi kula jeclaada kheyr. midaada kale rabbigeena subxaana watacaala cidba ma dulmiyo, wuuna naxariis badan yahay. qofka caasinaya ayaa hataa hadduu dhibaataysiya dhibaatada ka saaraa. marka riyooyinkan si walba, hataa haddaad caasi tahay, riyooyinkan farajay tilmaamayaan, mise waxay kuu tilmaamayan inuu rabbi kuleeya ku jeclaya soo noqo oo toobadkeen, mise inuu kurbooyinkaasiyadoo kaa saarayo. lambarka 4 waxaa weeye, haddaa ku riyootid adigoo qur'aan aqrinayo riyada dhexdeeda, mise waad dhegeysanaysa, taan waxay tilmaamaysaa faraj, qalbigaagana xasilooni, qalbiga aad ugu degaysaa. khaasatan riyadan oo kale waxaa wanaagsan qofka laga geeriyooday. geerida markaa ay cusub tahay, qof markaa uu kaa dhintay, aad ay u xanuun badan tahay moogtiin. marka sidaa darteeda riyada waxay tilmaamaysaa inuu qalbigaaga ilaahay qaboojin doono. lambar 5, roobka. haddaa ku riyootid iyadoo roob da-ayo, taa wax badan waa kasoo hadlay, hataa kanaalkii hore wax badanaan kasoo hadlay. caadi ahaan ani waa jeclaa, walaahi riyada roobka inaan ku riyoodo waa jeclaa. riyada roobka aad ay wanaagsan tahay, taana waxay tilmaamaysaa wax badan aan la soo koobi karin, wax walboo kheyra. yacni waxaad dhihi kartaaye maxay ahayd duco rabbi kuu aqbalay, toobadkeen, faraj, ciriiri aa ka bixaysid, xoolo, yacni subxaanallah, wax walbo. runtii ani waa jeclaa riyada. ilaaha nugu arsaaqina mar walba ku riyoon, ilaah noo gas. riyada 6 miya mise 7 maqaan meelaa marahay, biyaha socdo, hadda webiha ahaadaan, biyo caadi ahaan, biyaha socdoo dhanna aaday wanaagsan yihiin. biyaha socdo iyagana irsaaqaday tilmaamaya, khaasatan qofka xoolo la-aan, diiqad maaliyan ka sheeganayo,
iyo arsaaqad badan oo ilaahay kuga arsaaqay sidaa hore idinku sheegay caafimaad ximri dherer wax walba oo rabbina siina hataa awlaad riyada kale oo 8aad waa malaynay 9aad roob maahan xeebta badda xeebteeda iyadana aad ayaa loo amaanay hadday guur tahay hadday awlaad tahay hadday maxay safar tahay wax walba rabbi aad weydiisatay xeebta waxay sheegaysaa inuu rabbi kuga arsaaqay laakiin xeebta inay ahayd waa jawi degan jawi qaboob degan raaxo leh oo yani qalbigaaga caadi ahaan raaxo siinayso nambarka 11aad ibn siriin wuxuu leeyahay haddaad ku riyootid marcad adoo xiran toobcad toobka cadasna micnooyin badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ah tahaarad iyo nadiifin naftaada waxaa kaloo ka mid ah guur qofka guurdoonka ah waxaa ka mid ah dharka cadcad waxay kaloo tilmaamayaan faraj dhibaatooyin badan ka bacdi yani caadi ahaan qofkanu waxay wax badan uu soo samray waxay cadeynaysaa qofka ku riyoonaya asigoo mari cadcad xiran inuu wax badan soo samray wallahu yaclam nambarka 12aad nambarka maray maqaan idinka ii xisaabiyo qaybta committee soo qora qofka ku riyooda meel madow asigoo ku jiro meel mugdi ah ayaad isla markii waxaad arkaysaa adoo ka baxa meel iftiin uga baxay aad ay wanaagsan tahay wallahi riyooyinkan qofka ku riyooda waa yani maasha allah aad ay wanaagsan tahay haddaa ku riyootid waxaa way ciriiriyo culeysyo badan ka bacdi inaad u bixaysid hawo aad u wanaagsan yani nafis qalbiyan inaad dareemaysid kurbadaa waxay doontaa haato rabbi uu kaa dulqaada insha allah biidinillah wallahu yaclam lambarka 14aad haddaad ku riyootid qof inuu arrinkuuga bashaaraynayo matalan ka soo qaad haddaynan xadiisa nafsi ahayn matalan ka soo qaad gabadhan awlaad doonay ahayd qof ayaa yiri hiblaayay uuraad leedahay mise dhakhtaray la joogta dhakhtarkii wuxuu leeyahay uuraad leedahay mise qofkaas safar ayuu rabay waxaa la yiri safarkaagii fiisaagii kuu soo baxay waxyaabahaas oo kale laakiin haddayna xadiisa nafsi ahayd arrimahan oo kale xadiisa nafsi noqon karaan haddayna xadiisa nafsi ahayn waxaad ka fikiraysid waxyaabaha aanan ahayn oo qof arrinkuugu bishaareeyo kale ficla waxaa weeye riyo xagga rabbi kaaga timid bishaare insha allah maxayd badanaaba riyooyinka nabigeena calayhi afdal salaatu wasalaam wuxuu yidhi riyada wanaagsan rabbi ay ka ahaatay soomaha tan xunu shaydaanay ka ahaatay sidaa darteed riyada hadday wanaagsantahay khayr niyeyso badanaaba ilaahay subxaana watacaala wuxuu dadku sameeyaa muxuu noo sameeyaa anaga waxaa anaga asiga aan ka filano haddaan rabbi khayr ka filano khayr aan la kulmeynaa weligaaga baday rabbigaaga hakanii jabin khayr un filo mar walba khayr filo wallaahi aamin xataa saadaashaada khayr ha ahaato markaa wax saadsanaysid oo kale wax ayaad jeceshahay soomaha saadso midta intaa dhiila alaamay waxaa mayga xumaadaan waxaa maysaana noqdaan maya waxaad tirahdaa waxaa way ii wanaagsanaan doonaan haddaa saadaashaada wanaagsan tahay ani walaa waa tijaabiya arrintan hadday saadaashaad wanaagsan tahay saadaasha wax wanaagsan ayaad la kulmaysaa hadday deeradaadii cabaadkaaga calaaxalkaaga badan yahay u fiirso waad dhibaatoonaysaa walaahi runtii aniga wax badanaa kitaabiya akhriyaa walaalayaal wax badanaa arrimo baarbaaraa inaa arrimo baabaaraan jeclaa wax baaro mitala haddii maanta ani arrin igu soo gudboonaata waxaan jeclaa arrintaa inaan baaro aan kasal gaaro mitala markaan dhowr qofood oo aqoon-yahanaa hal arrin isku raacaan arrintaas ayaan qaataa marka ayaan hadal idinku daalinin halkaasaan kusoo koobayaa soo noqonaya arrintii gabadhi walaashay u tiri riyo wanaagsan ma arko riyo qarow iyo waxaan arkay riyo aan kala ilaabay riyo fiican oo dhan ma arko inteeda badanna ma riyoodo abaayo riyooyinka hadday sidaa tahay horta riyada waa nimco ilaahay riyadaa arkaysaan waa yani anaga laga yaabo inaanu ku baraarugsaneen qofka inuu wax baarbaaro jecel ayaa ogaan kala micnaha riyada leedahay waa sheyga keli oo qeyb ah matalan ka soo qaad hadda qof ayaa safar ku maqan wuxuu kaaga maqayaa meel fog
inaad kool kaamira aa ka wacdid mooye inaad caadi ula kulantid oo la sheekeysatid oo jirkiina istataabto matal hadaa gacanta isku salaantaan taa waa shay mustaxiila soomaha hataa adoo kaamira kula hadlaayo ma awoodid inaad isa salaantaan laakiin riyada waxay kuu rumeynaysaa qofkii inaad riyada aad kula joogtid aa cunto isla cuntaan aada habisa siisaan matalan kasoo qaad hooyadaa wadan dheeray kaa jirta hooyaa yani hooyo qof laga jecelyahay ma jira adduunka riyada dhexdeed waxaa aragtay adii hooyadaayo habisa siiseen ishushumiseen hooyadaa la joogtid yacni suurayso waa shay qeyb ah waa shay yani qeyb miya ma aqaan waxaan ku tilmaama laakiin waa shay yani mustaxiil ah inay hooyaday soo safarto masaani aan safro aan u tagay noqonay marka riyada nimco maaha miya hooyadaadii oo saaxiisa uu qabtay ayaa sidaas u arkaysaa haddii aan matal ahaan aan kaaga soo qaadayaa marka riyada waa nimco ilaahay waayo adiga riyooyinkaaga u yihiin qarow cabsi iyo waxaan la xasuusanayn oo riyo fiican u arkaynin aniga dhowr qodob ayaan ku siinaya adeegiyo qof walba arrintaa haysata hadda ka horna ayaantii oo maxay ahayd bandowga jiri xanuunkii jiriyo maxayd aan youtubekii hore in badan su-aalaha jawaabaha ka sameyn jiray dadka youtubekii hore la joogay kuley way xasuusan karaan facebook iyo instagram wax badan ayaan gabdho ku sheekeysan jirnay wax badanaa waqtiga haysan jirin waa berigaas lama bixi jirin oo xaalad xun ayaa wadanka jirtay 2003 ama waxay ahayd 2020 meelaha ilaa 2020 wax badan ayaa marka dad la sheekeysan jiray aan gabdhaha asxaabtaan ahay oo youtube-ka asxaabteeda kaa la sheekeysan jiray marka ayaantaa haddaa xasuusataan gabar ayaa ducana weydiisatay inaan u duceyno waayo ma baryoodaba waxay tiri nolosheeda ma baryoodaba marka sidaa darteed riyada marka qofka ka maqan tahay riyooneynin micnaheedoo dareemayaa waa shayga kale aad nafisku dareemaysid hataa haddii adi aa murugeysan tahay oo seexatidoo riyo wanaagsan aa ku riyootid waxaa soo kaxa adoo faraxsan kamaan haddii aan ka hadlo culimada nafsiga waxay ka hadlaan riyada inay aada u wanaagsan tahay inuu qofka riyoodo inay aada u wanaagsan tahay khaasatan riyooyin fiican inuu helo diintan islaamkana waxay bitiriba riyada wanaagsan xagga rabbigay ka ahaatay markaa bahayo inaada riyoonin dhowr arrimood way noqon kartaa horta lambarku adi xaaladaada adiga ogay waxaad fiirsaa adiga u dhawaashaha rabbigaaga ilaa intee la-egaa rabbigaaga u dhowdaa arrintaada wanaagsan tahay qof rabbigeeda raali gelisamaa tahay mise qof ilaahay subxaana watacaala caro gelisaa tahay wacayaadu bilaa tabcan maxaad lambarka labaad waxay noqon kartaa xanuuno ruuxi ah xanuun aniga horta ma aqaahi dadka ruqyada sharciga yaqaano laakiin wax intaan fasirka riida ku jiro iyo baarbaaritaan badan aan sameey wax yar waan ka fahmaa laakiin ruqya sharciga ma aqaan laakiin qofka xanuuniga ruuxiga haayo waxaan ka fahmaa matalan qofka riyooyinka noocaas oo kala arka xanuuna ruuxi inuu haayo way u badan tahay oo riyooyinka aana riyooneynin hadduu riyoodan waxyaaba cabsida iyo wuxuu kala ilaabay lambar kalaa jiro oo saddexaad ahaan karo qofka inuu daqta taleefonkan ka duubaya mar walba coda waxay kasoo dhexgalay kahor maxay ahayd qofka inuu ku sugan yahay arrin kale ahaan karto qofka inuu ku sugan yahay mashaakilo caadi ahaan nafsiyan adduunkan uu ku nool yahay iyo wuxuu dhanooya muruga aada u badan culeysya maxasilon nafsiyadiisa culeys saaran social media u badsaday matalan waxaa tiktok iyo arrimahan yacni gebigiisa qofka uu isku dadarsay isku buuqsan yahay maskaxdiisa ma degana xasilooni ma jirto midaas way noqon kartaa midaasna way ka turjumi kartaa aqoonteeda yar aniga intaasay tusinaysaa walaahu yaclam inay arrimo kala jiraan laga yaabaa waxaad sameynaysaa abaayoy horta tahaaro ku seexo weyse ku seexo mideeda kale haddaad hataa ku seexan kareen yani alaalaqal waajibaadka lagugu leeyahay markaad oofisidoo kabacdi waxaad sameysaa stress iyo buuqi waxaa qalbigaaga welwel iyo dhibaatooyin ku furaaya waxaa isku day inaad yareysid haddii xanuuno ruuxi jiraan isdaabey iscilaaji ruqya sharciya sameey wallaahu yaclam ilaahay caafimaad taamaha ku siiyo walaalayaal noo sheergareeya muuqaalkaana waxaa idinka codsanaya inaad dhameysataan waayo waxyaaba badanoo wanaagsanaa ku jiro hataa haddaa idinka ku riyoonin qof kaloo walaalka ku riyooda ayaa jiri kara riyooyinkan waa riyooyin bashaara wanaagsan
sidaa darteedna qofkaa u dirtid ajar inuu rabbi kaa siiya ayaa macquula. marka sidaa darteeda waad mahadsantihiin, waan idin jeclahay, waan idin xisi. Assalaamu calaykum.